kani waa laanta af Soomaaliga ee BBC oo aad ka dhagaysataan mowjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar Facebooka iyo barta internetka aan ku leenahay bbcsomali.com. subax wanaagsan akhyaaray waa talaado 27 Juulaay saacadda Afrikada Barina waxay tilmaamaysaa 7 subaxnimo. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenani waxaa ka mid ah madaxweyne Biden oo sheegay ciidamadiisu inay dabayaaqada sanadkani ka baxayaan Ciraaq. dadaallo lagu baadigoobayo xuquuqda matalaadda haweenka ee golayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo socdo. haddaba maxay yihiin waxyaabaha ugu mudan ee ay guddigu qabanayaan? shaqadu waxay noqon doontaa kulleyba inkastoo waqtiga hadda aad uu ciriiri u yahay, waxay noqon doontaa inaan guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo kuwa gobollada inaan la kulanno oo aan ku cadaadinno inay xoogga saaraan in qoondada haweenka ay hagaajiyaan. dadkaas oo galootiga ah ee Kanada oo dibadbax ka sameeyey xarunta baarlamaanka, haddaba maxay dadkaasi dalbanayaan? joogitaankii horta la ogolaado, qaxootinimo in la siiyo, safe haven qofku inuu horta badbaado horta waa in la siiyo, kabacdina marka intaa la siiyo hadhowta wuxuu noqonayaa permanent resident. joogitaan muxuu ahaa degenaansho ayuu helayaa, meeshay u socdaan waa degenaansho weyn. dabaylaha berbera ka dhacaya oo kalluumaysatada saamayn taban u geystay iyo qodobo kale oo ciyaaruhu ka mid yihiin. qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Cabdiqaadir Yuusuf Cali anoo Cabdiraxmaan Xaaji Cadoon in la socodsiinaya, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka subaxnimo waxaana u diyaaraa Axmed Beder. mahadsanid Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq halkaasi ay ka soo bixi doonaan dabayaaqada sanadkan. Biden ayaa hadalkan jeediyey xilli ra'iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa al-Kadhimi uu booqasho ku joogo magaalada Washington. Mareykanka ayaa waxaa imika ka jooga dalka Ciraaq ciidamo gaaraya 2500 oo askari. dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa dib u soo celiyey xiriirkoodii dhanka isgaarsiinta oo xukuumadda Pyongyang ay jartay sanad ka hor. bayaan ay soo saartay dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa lagu sheegay in arrintan ay timid kadib markii labada hogaamiye ay isweydaarsadeen dhowr warqadood. dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa la soo diristay dhibaato dhaqaale oo ay ka mid tahay gabaabsi dhanka cunnada tan iyo intay xirtay xuduudaha ay la leedahay dalalka dariska xiriir ay markaasi ay xirtay xuduudada sababo la xiriira fayraska corona. bandow habeenkii ayaa la amray in lagu soo rogo bisha soo socota dalka Tunisia maalin uun kadib markii madaxweyne Kais Saied uu joojiyey howlihii baarlamaanka dalkaasi. madaxweynaha ayaa sidoo kale xilka ka qaaday wasiiro ka tirsan dowladdiisa iyo ra'iisul wasaaraha. madaxweynaha ayaa beeniyay eedaym u soo jeediyey xisbiga ugu weyn ee dalkaasi Ennahda oo ku eedeeyey in uu fuliyo afgambi. hay-adda badbaadada carruurta Save the Children ayaa ugu baaqday deeq-bixiyaasha caalamiga inay gacan ka geystaan sidii dib loogu dhisi lahaa magaalada burburtay ee Raqqa oo ku taalla waqooyiga bari ee dalka Suuriya. hay-adda ayaa intaa ku dartay in carruurta ay ku nool yihiin burburka magaaladaasi oo mar caasimad u hayd kooxda IS, isla markaana aysan haysan waxbarasho, cunno iyo weliba waxyaabaha asaasiga ku filan. ugu dambeynna ugu yaraan 57 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku qaraqmaan xeebaha dalka Liibiya, taasi oo qayb ka khasaaraha ka dhalanaya muhaajiriinta doonaysa inay galaan dalalka Yurub. madaxa hay-adda caalamiga ee socdaalka iyo milaanta dalka Liibiya Frederica Soda ayaa sheegtay in dhacdadani ay tahay mid laga argagaxo. ma cadda ilaa iyo imika sababta dhalisay shilkani oo ka dhacay meel u dhow dekedda magaalada Homs. Cadow. Axmed Beder aad buu u mahadsan yahay. halka warkaas idinkaga imanayeyna waa BBC. aan ku bilaabe sida warkaba aad ku maqlayseen, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay ciidamadiisa Mareykanka inay ka baxayaan Ciraaq dabayaaqada sanadkan, balse ay sii wadayaan taageerada iyo la talinta ay siiyaan militariga Ciraaq. Biden ayaa qorshaha maamulkiisa shaaca ka qaaday kadib markii uu aqalka cad uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa al-Kadhimi oo dalkaasi booqasho ku maraya. Cabdiqaadir Yuusuf Cali ayaa faafahinta warkaasi noo haya, haatan stuudiyo ay kula sugan. cabdiraxmaan, ciraaq waxaa haatan ku sugan 2500 oo ciidamo Mareykan ah oo ka caawinaya ciidamada maxalliga ah sidii ay uga hortegi lahaayeen wixii ka haray kooxda la baxday dowladda islaamka. tirada ciidamada Mareykanka ayaa u badan tahay inay sidooda ahaadaan, balse tallaabadan ayaa loo arkaa inay tahay isku day lagu caawinayo ra'iisul wasaaraha Ciraaq.
cabdiraxmaan, joogitaanka maraykanka ee ciraaq ayaa noqotay arrin weyn tan iyo markii generaalkii ugu sarreeyey iiraan qaasim sulaymaani iyo hogaamiyaha maleeshiyada shiicada muslimiinta ah ee iiraan taageerto lagu dilay duqeyn diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanka ay ka geysteen caasimadda baqdaad sanadkii hore. xisbiyada siyaasadeed ee la safan iiraan ayaa cabdiraxmaan dalbaday in laga saaro dhammaan xoogaga isbahaysiga caalamiga ah ee maraykanka hogaaminayo, inkastoo ay weli jirto khatarta kooxda jihadoonka ah ee la magac baxday khilaafada islaamka. cabdiraxmaan, ku dhawaaqistan madaxweynaha maraykanka waxay calaamad u tahay dhammaadka dagaal kale oo uu soo bilowday xilligii madaxweynihii hore ee George W. Bush. madaxweyne Biden ayaa sidoo kale la sheegay in sanadkan ciidamada maraykanka ay ka baxayaan Afghanistan, taas oo horseeday soo labakaclaynta xogaga Taliban oo haatan sheegayso inay dhul badan qabsadeen. cabdiqaadir, sidaan la soconno ciidamo maraykana ayaa weli ku sugan ciraaq, gaar ahaan 3 xero sii jooga. marka bal aniga iyo dhegeystayaashaba waxaad dib inoo xusuusisaa xilliga uu maraykanka duulaanka ku qaaday ciraaq. cabdiraxmaan, xoogagii uu hogaaminayey ee maraykanka ayaa waxa ay duulaan ku qaadeen ciraaq sanadka markuu ahaa 2003 si ay xukunka uga tuuraan madaxweyne Saddam Hussein, iyagoo markaasi ku doodayey in ay meesha ka saarayaan hubka wax gumaada ee u muuqday inuusan jirinba. kadib madaxweyne George W. Bush ayaa markaasi waxa uu ballan qaaday ciraaq xor ah oo nabdoon, hase yeeshee waxaa hareeyey kacdoon diimeed oo dhiig badan ku daatay. waxaana sanadkii 2011 ciraaq isaga baxay ciidamadii maraykanka, hase yeeshee muddo 3 sannadood kadib ah ayay dib ugu soo laabteen kadib codsi uga yimid dowladda ciraaq oo la dagaalamaysay ururka IS oo xoog kula wareegay qeybo badan oo ka mid ah ee dalka ciraaq. kadib guuldaradii militariga ee kooxda IS ka soo gaartay ciraaq dhammaadkii 2017 ciidamada maraykanka ayaa kusii nagaaday ciraaq si ay gacan uga geystaan ka hortaga dib usoo labakaclaynta Daacish. waa sida ay sheegeen. cabdiraxmaan, aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir yuusuf cali. bal markana dhegeystayaasheena qodobkani fikirkooda kasoo dhiibtay haddii mid iyo labaan kasoo qabto sayid cumar cusmaan cabdulle oo jooga dhuusamareeb waxa uu yidhi madaxweynaha maraykanka Biden ee shaaciyay in ciidamadiisu ay ciraaq ka baxayaan dabayaaqada sanadkani runtii waxa ay muujinaysaa in maraykanku ciraaq isaga bixi doono isaga oo aan gaadhin hadafkii uu ka lahaa dalkaasi ciraaq. cabdisalaamka jooje oo jooga galdogob aadhahde waxa uu yidhi madaxweynaha maraykanka Biden hadalka uu sheegay in ciidamadiisa sanadkani dhammaadkiis kala baxayaan ciraaq waxay markaa ka qayb qaadan doontaa buu yidhi inay dib usoo laabato nabaddii ciraaq, sidoo kalena waxay fursad u tahay dowladda Iiraan oo hadafkeedu yahay inay gacanta ku dhigto wadamada gobolka. mahadsanidin ayuu yidhi. way mahadsan yihiin dhegeystayaasheena. bal markana wararkii soomaalida aynu jaleecno. dhowaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu magacaabay guddi ka shaqayn doono hubinta matalaadda haweenka ee golayaasha baarlamaanka federaalk Soomaaliya, kuwaasi oo ka kooban 13 xubnood. dhammaan xubnaha marka laga reebo hal nin oo keliya waa dumar, weliba ninka ku jira waxa uu liiska uga jiraa meesha ugu dambaysa. dad badan ayaa su-aalo iska weydiiyey sababta halka nin looga daray 12 gabdhood iyadoo weliba laga hadlayo qoondada haweenka. ninkaasi waa xasan axmed sidiiq oo muddo dheer ka tirsanaa bulshada rayidka. wuxuu u warramay waryaha BBC da ee Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan oo marka hore weydiiyey bal sida uu u arkay in 12 gabdhood 13 looga dhigo. ibrahim waad mahadsan tahay. waa run guddiga mar dhowey uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Roble ayaan ka mid ahay. magacan waa xasan axmed sidiiq. waa run 12 marwo ayaan anigu 13 ku ahay, inkastoo aan marwo la iigu qorin laakiin mudana la iigu qoray. marka horta sidaas horta inaa ula socotaa way, taas waa iga kaftan. tan kale hawshan waa hawl waxaan ku rahdaa aan hore uga soo shaqayn jirnay aniga iyo rag badan oo civil society-ga ama ururada bulshada rayidka ka mid ah. xilligii hore ee doorashooyinkii 16 mudane xasan sheekh ayaa sidoo kale dekreet ku magacaabay. 13 ayaan ahayn oon u xil saarnayn in aan xaqiijino qoondada dumarka loogu talagalay ee 30% ah. laakiin waagaas dhowr nin baad ku haydeen soo maaha? waagaas
bornin baan ku ahayn waxay ahaayeen 7 gabdhood ayay ahaayeen iyo 6 rag aan ku ahayn laakiin markan ra'iisul wasaare Roble wuxuu xooga saaray marwooyinka ayuu xooga saaray marka anigana maadaama aan kamid ahaa dadka aad ugu dhuundaloolo oo ururada bulshada wax badan kasoo shaqeynayay saas darteed ayaa la igu soo daray marka waxba kama qaba aniga mar walbaba qaranka ayaan u shaqeynayaa waxba dhiba igu keeni mayso inaan hablahaas la shaqeeyo Soomaaliyeed hablahana waa hablihii howlkarka ahaa ee hormuudka ahaa ee ururada bulshada laga yiqiinay oo gebigood wada khubaro ah oo caan ah weeye marka waan ku faraxsanahay hawshaas waxaan ka qaban karnaa waan ka qabanaynaa insha Allah Sidiiqow tan iyo markii ay soo baxday magacaabistan ee 12 dumarka ah adigu aad 13 ku noqotay dadkii saaxiibada ahaa iyo dadkii kale bulshada markay arkeen ma kula soo hadleen ma ku weydiiyeen qaar badan baa ila soo kaftamay oo igu yiri war adigu ma naagashanay tahay maxaa gabdhaha kugu daray qaarna way ii soo hambalyeeyeen oo waxay yiraahdeen niyow hadee dumarka wax badan bay cawdeen oo yiraahdeen annaga waan la dulmiyay minority ana laga dhigay yiraahdeen laakiin markan adiga minority ah marka sidaa ula soco hadii aad garab u baahatana waad na soo weydiin kartaa bay igu yiraahdeen qaarkood saaxiibada Sidiiqow dumar kale oo aan la hadlayno waxay yiraahdeen waxaan aragnay liisas badan oo raggi ka buuxaan oo qof dumar gadaal looga dari jiray marka maanta waa faraxsanahay 12 dumara wiil gadaal looga daray marka aragtidaas ka waran ayuu la turkeeda waa macquul laakiin muhiimadda waxa weeye hawsha la rabo in la qabto ayaa waxay u baahan tahay khibrad iyo waxay u baahan tahay waayo aragnimo ay u baahan tahay marka anigu dhinaca waayo aragnimada unba ayaa laygu soo xushaan umalaynaya wax kale ma jiraan dhib kale ma jiro shaqadaadu maxay noqon doontaa shaqadu waxay noqon doontaa kulleyba inkastoo waqtiga hadda aad uu ciriiri u yahay waxay noqon doontaa inaan qaybaha doorashooyinka ku shaqada leh oo dhan inaan waraysi la yeelano yani aan la kulanno odayaasha dhaqanka inaan la kulanno guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo kuwa gobolada inaan la kulanno bulshada oo dhan inaan maxaan ku rahdaye la kulanno oo aan ku cadaadino inay xooga saaraan in maxaa heeday qoondada haweenka ay hagaajiyaan Sidiiqow dad badan oo kale waxay isweydiinayaan marka shirka 13 qof ay wada galayaan markay 12 dumar tahay oo adoo kaliya rag tahay doodu sidee noqon doontaa sideedaba ma ogtahay yani marka laga hadlayo barnaamijkan marka laga hadlayo qoonda dumar marka laga hadlayo waxaan afka qalaad lagu yiraahdo gender weeye genderkana micnaheedu ma aha dumar kaliya ma aha laakiin markii gender la soo qaado ayaa si caadi ah dadku waxay u fahmaan in oo dumarka laga hadlayo marka arrimaha laga hadlayo waxa weeye yani waxa qaybsiga dumarka iyo ragga laga hadlaya oo waa wax iska caadi ah oo arrimahaas waa arrimaha maamulka iyo siyaasadda ayaa nagu keenaya laakiin dhaqanka Soomaalida waxa weeye dumarka siba maaragtay loo cadaadiyaa oo siba maaragtay loo riixaa marka hawlqabad la yiraahdo ama wadanka waxa loo qabta la yiraahdana ayaga ayaa ugu horeeya marka waxay mudan yihiin in gacan la siiyo ayay mudan yihiin aniga marka ragga ayaan waxaan isleeyahay waad ka difaacaysaa oo marka ragga lala doodayo dooda ayaad kala qaybgalaysaa ayaan leeyahay macnaha waxaan isleeyahay yani dhinacaas ayaad ka caawinaysaa baan isleeyahay aniga kaasi wuxuu ahaa xasan axmed sidiiq oo ka tirsan guddi ka shaqayn doona hubinta matalaadda haweenka ee golayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu warramay wariyaha iyaga Ibraahim Maxamed Aadan halkaad nagala socotaana waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba kalluumaysatada magaalada Berbera ayaa sheegay in ay camal la'aan la soo daristay kadib markii ay badda ku dhufteen dabaylo saameysay howlahooda kalluumaysiga dabeylahani oo badanaa bilaha 6 iyo 7 ku dhufta Berbera ayaa lagu soo warramayaa inay tahay mid ka xoogan kal hore ama xilligani oo kale sidii ahayd bisha 7 laash ay kalluumaysatadu lahayd oo badda ku ambatayna waxa ku dhintay hal qof iyadoo qaar kalena la soo badbaadiyay haddaba maamulaha kalluumaysatada Berbera Ismaaciil Cabdi Xirsi Saarsaar ayaa ka wareysanay saameynta dabaylahaasi ay ku yeesheen kalluumaysatada wuxuuna u warramay Fartuun Ismaaciil Axmed magaalada Berbera waa xilligii dabaylo badan oo weyn baa ka dhacaya bishan hadda in ku jira 22 ilaa iyo bishii 6 dabaylo waaweyn baa dhacayay oo duufaana marka magaalada xaaladeedu adigu dabaylo badan baa ka dhacaya oo dawaana xilli caadada ay tahay oo lagu yaqaan laakiin way ka yara badan tahay sidii hore aad u badan tahay sanadkan waa tahay marka khasaare intee la eg ayay sababtay dabaysha ka dhacay xeebta Berbera walaal Fartuun waxa ugu badan dhacay waxa weeye 22 bishii 6 oo markii ay dabayshu bilaabantay laash baa xeebaha galbeedka u baxay baa dabayl qaaday laashka 4 qof baa saaraa
badda 4 qof waa laga badbaadiyo ciidamo Mareykan baa qaaday oo isagoo biyaha Djibouti buu xagga raaxada uga kacay marka baa xeray oo Djibouti geeyay dadkii laashkiina adigu saas uu ku tagay dabadii bishan 7 aan ku jiro laash dhinaca galbeed ee magaalada Berbera jira ayaa ka kalluumaysanaya nin baasna ka dhacay ninkaasina Allah uu naxariistay halkaas uu ku geeriyooday badda ku dhintay adigu waxyaabo badan oo noocaasi way jiraan laakiin labada ugu waaweynaa marka sidee ayay u saameysay kalluumaysatadii ka jilaaban jirtay xeebtaasi waxay u saameysay kalluumaysatadii horta wiigan ama bishan 25 shaqadii gebi ahaan way istaagtay shaqadii kalluumaysigu maadaama dabeelo waaweyn oo kababaad moodeenayba ka badan yihiin kuwii xagaagu dhacayaan shaqa haddan ma socoto insha allah laakiin waxaan rajaynaynaa inay wiigan dabayshu naga goy doonto oo dee shaqadii dib loo bilaabi doono laakiin hadda shaqa ma socoto badda shaqa kama socoto marka maxaad u qabateen ilaa iyo hadda dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay ee dabeesha ku dhufatay xeebta Berbera marka dee shilku ku dhacay dee waaba dhinteen oo kuwa ninkaa ku dhintay badda ku dhintay kuwa kale waaba laga soo badbaadiyay way yimaadeen laakiin dee mar walba saad waxay diyaar la tahay wixii gurmada marka la soo sheego mar walba shirka dhaca way gurmataa gaadiidkeedii loo diyaara mashaakilka ugu weyn jiraan waxa weeye badda marka qofku uu shaqo tago isagoo shaqadii ku guda jira ayuu hadduu doono maalinta koowaad ismaanaya khadkuna uu ka go'ayaa dabadna saasaa muddo lagu tabayn marka taa ugu weynaan cabsida nagu haysaa waa taa marka waxay noqotay in dadkii ganacsatada ahaa iyo lagu wacyigeliyo inay joojiyaan shaqada intay dabayshu sugan tahay taasina insha allah haddeer way joogsatay waxaan rajaynaynaa markay dabaylu go'aan in shaqadii dib loo bilaabo marka ay xaaladahan oo kale ay dhacaan maxaad samayn jirteen oo aad ku xalin jirteen mar walba sidan ma dhacdo sanad bay dabayshu badataa sanadana way iska fiican tahay marka wax kulli mar walba joogtama laakiin dabciyan waxay noo dhaqanaa inta badan in badda 90% gaadiidku marka horeba ka nasto marka bisha 6 la gaaro inta badan ay nastaan oo iska joogaan ilaa bisha 8 la gaarayo oo bishaas yalla bisha ay markaa gaadiidku fadhiistaan oo waxaan dhahdaa dabaysha aanay shaqa tagin marka mararkan oo kale hadda sidoo kale wuxuu dhacaan sidan u baadiyo loogu gurman jiray laakiin sanad ayay dabayshu soo badataa sanadana jawi gudo iska wanaagsan yahay oo dadku iska shaqaysan karayaan haddii ay sii socoto dabayshan maxaad samayn doontaan si khasaare intaa ka badan ay uga dhalan walaalay horta dee waxa lagu qasbay waa wax ilaahay keeno oo waxaan dee cidi mas'uul ka noqon karin laakiin qorshaha waxaa noogu jirtay inaanu bisha 7 haddii alla ka dhigo sanadkan wixii ka dambeeya aanu ka joojino gaadiidka dhammaantiin inaanu shaqo tegin bishaas oo bishaas loo aqoonsado bil aan cidi shaqayn karayn xilliyo hore sidan ay ahaan jirtay laakiin haddeer maadaama dee shaqooyinku yar casri noqdeen dadku iyaga bilaabay inay shaqeeyaan laakiin kolliba dabcigeedu bishan waxa weeye inaan la shaqayn 7 marka qorshaha noo soo socday waxaanu doonaynaa inaanu haddii alla ka dhigo tallaabooyinka ugu horreeyaanu qaadayna waxay tahay inaanu horta bal bisha bil fasax ka dhigno oo markay sanadkan u dhamaado kale sanadka dambe oo kale haddii ilaahay ka dhigo ay noqoto bil aan la shaqayn si aan uga hortagno khasaare dhimasho iyo naf iyo dee hantiba leh kaasi wuxuu ahaa Ismaaciil Cabdi Xirsi Saarsaar oo maamulaha kalluumaysatada Berbera oo u waramayay Fartuun Ismaaciil Axmed bal markana Kanada dadka soo galootiga ee ku nool dalka Kanada ayaa cabasho ka muujiyay sharciyada ay dalkaasi ku joogaan iyagoo qaarkood sharciyadooda ay dhaceen kadib markii uu saameeyay cudurka safmarka COVID-19 dadka soo galootiga oo ay Soomaalidu ka mid tahay ayaa banaanbax ku dalbanaya in ay dawladda Kanada sharciyadooda wax ka qabato taasoo markaasi saameyn ka sameeyay markaa mudaharaadyo xarunta baarlamaanka dalkaasi Awil Axmed Xirsi oo arrimaha samafalka iyo weliba xuquuqda dadka laga tirada badan yahay ee dalka Kanada ka shaqeeya ayaa khadka telefoonka igu warramay ugu horreyn waxaan weydiiyey dadkani cabanaya waxa ay yihiin dadkan waxay ka cabanayaan duruufo badan oo iskulmiyey baa jira tan koobaad waxa weeye dadku markii hore qaarkood intooda badan waxay ku yimaadeen sharciga la yiraahdo shaqada work permit waad ogtahay 2 sano u dambeeyey duruufaha COVID-19 oo keenay waxay yaraaday socodkii waa la xalliyay marka dad badan baa hakad ku galay dalka gudihiisa sharcigii waqtigii ku noqon lahaayeenna wuu dhacay dawladdiina way celin weyday oo qof maaragtay meeshii lagu celiyo xoogaba adkaatay iyagoo loo baahday shaqadu mar walba loo baahday inay sii joogaan oo sharciga ay sii shaqeeyaan laakiin maxaa xanibaya sharcigii ku yimaadeen markii hore oo laba dawladood oo bilateral baa heshiiskani ku jiray intooda badan marka halkaas weeye meesha horta ay ka timi xanibaadu marka dadkan soo galootiga maxay codsanayaan waxay codsanayaan in sharci la siiyo markii sharcigii lagu celin lahaa waqtigii waa dhaafay qaar baa sanad jooga qaar baa 8 bilood jooga marka waxay u baahan tahay halkaas in dawladda Canada dib u fiiriso shaqadiina waa loo baahan yahay oo dalkan laborka forestku waxa weeye intiisa badan shaqooyinka hoose oo dhan waxa qabta dadka ka yimaada wadamada oo immigrantska soo galootiga qabta waana shaqo loo baahan yahay
waan gartay marka dadkani soo galootiga ay cabanaya cabashadooda ayay gaarsiiyeen dabcan waxaa jira dee hay-adaa jira lawyers baa jira meeshay ku mudaaharanayaan waxa weeye waa meesha looga taliyo dalka waa aqalka baarlamaanka markii midiyu ay tagaan oo la arko marka arrintaasi waxay keenaysaa dareen baarlamaankii dad baa jira dadkan la wada hawsha oo kanadiyaan ah ama shaqooyinkii dadkii ay kameriyaashii ha noqdeen ama dad kaloo xataa ehela dadka ehelkaa nafkooda dee waad garan kartaa xiriir bay leeyihiin marka dadkaasaa la wada hawsha dadkani cabanaya ee soo galootiga ah soomaali ma ku jirtaa marka soomaalidu kuma badna sababtuna waa maxay dadkan waxay u badan yihiin haddaan fiiriyo 98% waxa weeye dadka marka hore ku yimid waxa weeye beermiska soomaalidu waxa weeye waa la ogyahay dalkooda inuu dal yahay qaxooti yani furan marka inta badan arrimaha soomaalidu wuxuu galaa wax la yidhaahdo backlog markay soomaalidu yimaadaan oo heshiiska marka loo ogolaado waktiga socodsiinta ama processing timeka casekiisa baa marmar dib u dhaca laakiin kuwani waa ka duwan yihiin oo dad ku yimi weeye permit weeye shaqo ku yimi oo marka isdul fuulay oo koray 2 sano 3 sano dadkii la celin lahaa iyo duruufihii uu abuuray coronaviruska ayaa keenay dadkani inay koraan iyaguna marka waxay arkeen baahidiina inay taalo sharcigiina uu dhacay inay fursad u furan tahay ku dacwoon karaan waa gartay marka codsigooda haddii la aqbalo marka dadkani maxay helayaan joogitaankii horta loo ogolaado qaxootinimo in la siiyo safe haven qofku inuu horta badbaado horta waa in la siiyo kabacdina marka intaa la siiyo hadhowta wuxuu noqonayaa permanent resident joogitaan muxuu ahaa deganaansho ayuu helayaa meeshay u socdaan waa deganaansho wey wax la yidhaahdo permanent resident meeshay u dacwoonayaan halkaas dowladda xaggeeda marka wax jawaab ah oo ay ka heleen ma jiraa haddii mar ay ku barnaan baxeen halkii dalka looga arriminaya ugu sarreysay ee baarlamaanka hortiisa dowladda wax jawaaba ma ka bixisay markaa codsigooda ama cabashadooda ilaa iyo hadda wax laga soo saaray oo dowladdu ay ka bixisay lama sheegin arrimaha jira mararka qaarkood dowladdu ay ka dhowrsato dowlad kasta oo markaa jirta waqti hadda waxaa la sheegayaa inay doorasho dhici doonto September October mar alla markii election uu yimaadana arrimaha immigrationka waxay ku leedahay ridal ficli yani wax la yiraahdo negative impact waayahay ugu dambayn marka haddii markaa dadkani soo galootiga ah ee haatani cabanaya cabashadooda la aqbali waayo maxaa dhici kara marka ama maxay la kulmi karaan waddanku sharcigu leeyahay horta wax isku soo boodi ma jiraan waa loo kaadinayaa marka kolley si un baa loo xaliyayaa xal waa iman doonaa dadkan waa la celin jiray waxaa jira kambaniyaal baa jira kambaniyaashii celin jiray xafiisahoodii waa laga xiray ama halkaa laga xiray ama waddankii ka iman jireen waxyaalo badan oo arrintaasi shaqadii socodsiinteedii ay keentay baa jira marka halkaasaa gaabku ka yimid mugta kaasi wuxuu ahaa Cawil Axmed Xirsi oo arrimaha samafalka iyo xuquuqda dadka laga tirada badan yahay ee dalka Canada ka shaqeeya oo khadka telefoonka igu warramay halka nagala socotaana waa BBC ka dhagaysa BBC Somali mobilkaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com wararkii ciyaaraha ayaa noo soo socday bal markana Zambia iyadoo doorashada Zambia ay ka harsan tahay wax ka yar hal bil loona asteeyay 12 August waxyaabaha ay codbixiyaasha sida weyn u hayaan waxaa ka mid ah sicir barar baahsan oo ku yimid qutal daruuriga gaar ahaan raashinka xubnaha xisbiyada mucaaradka ee ololaha doorashada Zambia qayb ka ahna waxay sheegayaan shacabka dalkaasi inay gaajo ka cabanayaan balse xisbiga talada haya APF wuxuu markaa ku doodayaa inuu yahay xisbiga weli xaq u leh inuu hogaamiyo dalka Zambia inkastoo eedeymo musuqmaasuq oo tiro badan loo soo jeediyo haddaba warbixinta uu wariyaha BBC Vumani Mikiza uu Lusaka ka soo diray waxaa soo jeedinaya Axmed Nagaashe dalka Zambia wuxuu u diyaar garoobayaa qabashada doorashada dhici doonta 12 bisha dambe qodobka ugu mudan ee ajandaha ololaha ee waliba shacabku doonayaan in aad looga hadlaano waxa weeye dhaqaalaha dalku sanadkii hore waxa uu iska bixin kari waayay deynta lagu leeyahay ee uu sanadlaha u bixin jiray sicir bararkuna cirku isku shareeray oo qiimaha hilibka iyo kalluunka ayaa haatan gaadhay halkii ugu sarreysay muddo 18 sano ah guud ahaana qiimaha maciishada oo dhan ayaa kordhay 13% tan iyo bishii Oktoobar ee kal hore Zambia waxay iska bixin kari weyday lacag dhan $3 bilyan oo deyna oo lagu waday inay iska bixiso sanadkii hore taasina waxay saameyn taban ku yeelatay dhaqaalaha dalka dadka ay aadka u taabatay arrintaasina waxay u badan yihiin shacabka dabaqadiisa hoose ee dadku u badan yihiin oo culays ku fuulay hobalkan 33 jirka ah oo la yiraahdo Newton Menza
kuna magac dheer bototo ayaa dhowaan soo saaray hees uu qaaday oo ka hadlaysa dhibaatada ay geysiisay shacabka dalkaasi xaaladda dhaqaale xumo ee jirta qiimaha leyrtriga cuntada asaasiga ee ay ka midka yihiin galleyda iyo saliidda cuntada ayaa si aan hore loo arag u kordhay heestaa uu qaaday ayuu ku iftiiminayaa dhibaatada haysata dadka zambiya sababta aan u soo saaray heesaha noocan ah waa in culayska dadka uu ka batay marka laba wakhti aad wax cunto waxay taasi ka dhigan tahay in maalinkaasi ay ku wanaagsanayd sidaasi daraaddeed waa inaad cabbirtaa xilliga aad wax cunayso si quraacda qadada iyo cashada ay u noqdaan hal cunno maalinkaasi oo dhan ayaan joogayaa anigoo aan wax cunno ah ku fikirin sida ku cad warbixinta sannadlaha ee lagu soo saaro liiska dalalka cuntayaridu haysato zambiya waxay ku jirtaa kaalinta shanaad oo ah inay tahay dalka shanaad ee dunida ay ka jirto gaajada baani guddoomiyaha xisbiga hantiwadaagga ee zambiya fred mbembe ayaa qaba in duruufta jirta ay uga sii dartay lunsiga hantida dowladda ee la sheegay inay musuqaan saraakiisha dowladdu The main aim was to create expenditure lines from which they can sustain their corruption. Ujeedku waxa uu ahaa in la abuuro qaab lagu xadidi karo kharashka baxaya si loo xakameeyo musuqmaasuqa. Dadkaasi waxay noqdeen qani, inta badan dadka yagana waxay noqdeen sabool. Arrintaasi waad arki kartaa oo uma baahna xitaa inaad aad u sii eegtid. Dad sanadihii la soo dhaafay aanan waxba haysan ayaa maanta hodana. People who had nothing a few years ago, today they are so rich. hase yeeshee afhayeenka xisbiga talada haya ee Patriotic Front Antonio Mwanza ayaa beeniyey dhammaan eedeymaha musuqa. musuqmaasuqa lagulama dagaalami karayo halkudhegyo lagu celceliyo oo keliya ee waxaa lagula dagaalami karaa in la xaqiijiyo in la meelmariyo oo la dhaqangeliyo sharciyada muhiimka ah iyo in la xoojiyo mas-uuliyiinta awoodda u leh inay la dagaalamaan arrimaha musuqmaasuqa dabcan waana sida uu sameeyey madaxweyne Edgar Lungu iyo xisbigiisa PF. Laura Miti oo ka tirsan bulshada rayidka ee Zambia kana tirsan ururka la yiraahdo Alliance for Community Action oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda shacabka ayaa qabtay in doorashadani tahay tii ugu muhiimsanayd ee Zambia ka dhacda marka la eego xaaladda taagan. sanadihii u dambeeyey waxaa la qabtay dhowr doorasho badankood waxaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwo muhiim ah balse u malayn maayo inaanu weligeen soo marnay marxalad adag oo tan oo kale ah haddii aan nahay reer Zambia waxaanu mar walba u weecan jirnay jihada doorashada dalka kuwaas oo ah kuwa god nagu ridaya ama kuwa dib loo celinaya. dadka rayidka ah ee reer Zambia sida Newton oo kale waxay qabaan inay doorashadani tahay tii ugu miisaanka cuslayd ee la qabto noloshooda natiijada ka soo baxdaana ay jaangoyn doonto sida uu noqon doono dhaqaaluhu iyo dhabaha uu cagta saari doono dalku sanadaha badan ee soo socda sida awgeedna waxaa ka go'an inay codkooda dhiibtaan oo uu maro halka ay la doonayaan. axmed nagaashe aad buu u mahadsan yahay bal markana dhinac ciyaaraha haddii aynu egno ciyaaraha olombikada ee ka socda jabaan xagga natiijooyinka iyo biladaha saddexda dal ee ugu horreysa haddii aan soo qabto maraykanka ayaa ugu horreeya wuxuu haystaa 19 dhibcood iyadoo 8 ka mid ay dahab yihiin jabaanna wuxuu haystaa 13 biladood 8 waa dahab shiinahana 18 ayuu haystaa isagoo kaalinta saddexaad ku jira wuxuuna haystaa 6 dahab qaaradda afrikana waxaa kaalmaha soo galay kaalinta 12aad dalka tunisia oo haysto 2 biladood oo mid ka mid a uu yahay dahab dhinac ciyaaraha kale haddii aynu egno kooxda Manchester City ee Premier League ku guuleystay ayaa doonaysa saxiixa xidiga weerarka ugu ciyaara Tottenham ee Harry Kane kaas oo markaa dalabkiisa uu kooxda kaga tagayo u gudbiyay maamulka kooxdiisa kooxda Tottenham ayaa lagu soo warramayaa in ay dalbanayso lacag dhan 160 milyan oo euro taasoo ay Manchester City ay diiday in ay ka bixiso hal xidig oo kaliya sida laga soo xigtay wargeyska Daily Mail kooxda City ayaa dalabkeeda u weecin doonto Lewandowski haddii ay Tottenham qiimaha hoos u dhigi weydo weeraryahanka reer Poland oo muddo 7 sano ah kusoo qaatay andhahda kooxda Bayern Munich waxa ay City u aragtaa xidiga buuxin kara booska Aguero andhahde xubintii ciyaaraha ayaa ugu dambeysay idaacadeena subaxnimo noo soo bilaabatay saacadu markay ahayd 7 subaxnimo barnaamijka waxaa soo saaray Cabdiqaadir Yuusuf Cali ana Cabdiraxmaan Xaaji Cabdi la socodsiinay dhammaanteen isku duwan waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabad gelyo